ganacsiga maxay geysaa ورميه وقفت بحي حيد وبيجي يا بس سي السعودة عكت سكتي صارت وقف كبيراني لكن والله آد أقرب بدنتها قفتان هنا كهر معهن قفك وحواي مركا أبالشي كوبك كحرنا والله بالله ورهينا قفتها كنت بتجاه ورياء مدن إيه كان ورقدي مدن مرة قد ديار وكان ورقدي يقعد ما يستلم الحردم ها وإذا ديار سميا صحيح بس هذه كاردنا صحيح على جسمه وهذا تعيط ما لها صحيح أيوة تعالى ما سنت ما تشغل بدنا يتعالى حفيزكي حوله وبذينه مرو ها قف بنانك كوتاري يا وقف كيتاي أنا قف ما ولا بلنسين ولا قف كيتاي أنا بل سودا هي وقف كاسي حاسين مرو قف ولا بلنسين بالساك أيوانيا مرو يمكن كوتاري سوما هيك برسلها maxaa iga soo doontay maxaa halkan ku keenay maxaa u baahan tahay soo lacagtaada kuma siinin أبايو روش العالم كله وحين إحنا maxaa igala hadlaysaa maxaa yar baa aniga hadii suuqa anfac ما أديك استيتش محل كل شيء وحين بحرنا كل الله عليه سيدا يسوع دافته runtii ka halwaayay marka waxaan damcay gabar Soomaaliyeed ah tahay inaan kula hadlo aniga wiil Soomaaliyeed ah marka inaan xiriir sameeyno oo quraad numberka ay soo saarno xiriir batri وريا كعلى عليه مقالك والله حبيبكي waxaa soo doonanaysa aniga aad isku reebnayna markaad si fiican isku eeg mid kale maxmeelii baanashka dadku waxa lagu baalashay madax xafiiskan oradiga ka baxalbaadka warga saar waxana qoy dib damana ugu soo deyn marwa galab wanaagsan warqadahan ku wada oo maamulka korkaaga yimi xilligan laga bilaabanayo heshiiskii maamulku uu ka laabtay xilligan laga bilaabanayo shaqada fasaxa ka tahay warqadiina waa kuwan shaqada maxaa laga saaray maxaa galay wixii oo dhan waxay ku saxiixan warqadan way ku ciyaaraysaa maamulku wuu ciyaaray laakiin warqada fiiri waxa dhan warqaday ku saxiixan xilligan laga bilaabana shaqada fasaxa ka tahay xilligan oo kale miyaa shaqada la iska saaraa shaqada yaa laga saarayaa xilligan shaqo ka saar miyaan ka baxaa hooyadii oo xanuunsan baa ii jirta oo isbitaal iyo howlo badan ayaa laga sugayaa ma aqaan waxaa sameeya xilligan oo kale ma aha xilligii shaqada la iska saarayay dadkan maxaa sida ay la dhaqmeen waa bani'aadanimo ka bax sida ay la dhaqmayaan saan wallaahi aqli maaha adduunya waxaa la yidhaahday markay sidan kuu qabsato ciriiri wey ma aqaan wallaahi waxaa sameeyo laakiin maalin dhaweyd shirkad baa ayaa shaqo la igaga sheegay shirkadaas waa inaan raadiyo ilan fadhiyo ma yaalo sababtoo ah ma fariisan karaba hooyadii mar hadday iga xanuunsan tahay oo la igaga baahan yahay lacagaan isbitaal ku geeyo ma aha inaan fariisto waa inaan shirkada kale aan raadiya waa intaasoo aan shaqo kasoo hela aan ku guulaystaa si markaas aan hooyadii aan u garab istaago oo waxay u baahan tahay aan markaas aan ka saacido waan baxayaa talo fadhi ma jiro والله سنت دواء شركتنا ayaan dhawaan shaqo soo bandhigaysay marka shaqadaas oo baahnaa anigu waxaan qof dhibaataysan hooyadii xanuunsan baa isbitaalka taala marka shaqo hadii aad uga caawin kartaan booskaas ee soo bandhigtay shirkadina ayaan u baahnaa inaad booskaas siisaan abay waa mahadsan tahay warjeena in lagu caawiyo booskiina hadda uu maqan yahay waa nin xaris badan insha Allah mar dhow uu iimaanaya arintaadana uu bandhigaya hayo walaal qaali hay abay in soo iimaanaya abay kan waa way soo dhow magane soo hay'ad barashada maxaa iga soo doontay maxaa halkan ku keenay maxaa u baahan tahay soo lacagtaada kuma siinin mid kale maxmeelii baanashka dadku waxa lagu baalashay madax xafiiskan oradiga ka baxalbaadka warga saar waxana qoy dib damana ugu soo deyn qofka Soomaaliya qofkan hore u xumeeyay isaga maamulooda miyaa isaga ah patroonigooda
ma maleynayo qofkan ayaan saa ogaa aan shalow galay inaan maanta shaqo ka helayo ee meeshan iskaga tagaa talo. mudane gabadhan waa gabar shirkadda igu soo booqatay hooyad baa ka xanuunsan isbitaalkaga jirta booska shaqada ambeejka shirkadda ku xaysiinay leeska caasimadda waxay u baahan tahay in la siiyo hooyadeedna in loo caawiyo. waayahay walaal soo dhawow gabadha booska shirkadda ka bannaan geeya hooyadeedna ha loo caawiyo. istaagala la bixin aan ka xumahay wixii hore aan kuu geystay waxaan rabaa wixii hore aan kaaga diiday inaan hadda saa jeceshaa kuu sameeyo. walaal iga raalli ahow aniga hadda xaasla ayaa ahay waxaan diyaar u nahay inaan ku caawino hooyadana aan ku caawino booska shirkadda ka bannaan aad ka shaqayso marka aad iyo aad u mahadsan tahay wax dhibna kuuma qabo.